السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أهل خير كالصوماليات وحان هالكان إذن كغسو قد بين دونا محاضرة كسابسن دحالك قفك نول iyo qofka dhintay waxyaabaha markaas looga baahan yahay oo aad moodo in ay Soomaalidu ay fududeysanayaan waxaana noo soo gudbin doona Sheekh Cusmaan Macaani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan jeclahay inaan waxyar aan waadixiyo in badanna aanu wada ogsoonnahay laakiin hilmaan lagu jiro ilaahay wuxuuna leeyahay fadakir fa ina dikra tanfacu almu'miniin waanada iyo waxsheega qofka mu'minka way anfacaysaa mowduuca aan rabo inaan wax ka taabto baryahan fayruska corona in badan oo walaala ayaa ku dhinteen oo mu'miniina muslimiin in badanna waa ay xanuunsan yihiin allah shaafiyo caafiyo in badanna way iska fududaysanahayaan marka mas'aladda aan rabo inaan isxusuusino waxay tahay maadaama in badan ay geeriyoodeen calaaqada qofka dhintay qofka nool ka dhexeeya ayaan rabaa inaan wax iska xusuusino qofka markuu dhinto ee mu'minka wixii uu ka tegay xoolaha ha yaraado ha badnaado ilaah baa qaybiyey ilaah baa ka dardaarmay waa dardaaran ilaahay subxaanahu watacaala oon makhluuq aan shaqo ku lahayn walaa malakun muqarab walaa rasuulun mursal walaa nabiyun mursal malag ilaahay u dhow iyo nebi la diray midna arrinkaa uma qumin balse waxaa u qumay rabuulcizati waljalaal maadaama baryahan geeridii ay badatay waxaa lagama maarmaan ah dardaaranka ilaahay in aan la ilaawin oo ah qofkaa dhintay wixii uu ka tegey in oo ilaahay maamulay oo ilaahay ka dardaarmay fulinteedii ayaynu isxusuusinaynaa in badan ma yaqaanaan qofkan dhintay yaa wuxuu ka tegey yaa iskale oo xaq u leh yaa dhexlahaya yaansan dhexlaynin in badan ma oga waxaa aad iyo aad runtii la yaab leh wiil baa dhintay wuxuu ka tegay caruur dhaxal aabbihiisibaa oo walaalihii iyo hooyadii ay ku dhaxaltameen ayuu qayb ku lahaa qaybtii uu ku lahaa waxa dhexlahaya wuxuu dhalay carruurtuu dhalay ayaa waxay la yaabeen sida ay ayeydood aabbahood hooyadii ay dhaxalka ula qaybsanayso haw bay yidhahdeen seebay noola qaybsanaysa waa ogaan darro wey dhaxalkan dadka iska leh iyo dadka aan lahaynba kitaabka iyo sunnada waa lagu bayaaniyey culumta ama cilmiga shareecada markii saddex loo qaybiyo qayb baa ah cilmu almawaariith ayaa la yidhaahdaa culimmada iyo fuqahada kitaabo badan bay ka qoreen oo haddii dib loo raaco la helahayo maasha allah ma aragtay meelaha kutubada lagu gado waa laga helahayaa cilmu almawaariith cilmu alfaraa'id inta aanan guda gelin waxaan rabaa inaan isxusuusino dadka maamulka
qofka dhintay hantidiisa haya in aysan dib u dhigin, in aysan wax la sugin. dadka qaar baa waxaa ka dhaadhacsan hadday caruurta yaryar yihiin 15 jir yihiin inaan xoolaha la qaybin, la sugo ilaa ilmaha ugu yar 15 jir ka gaaro. waa qalad. qaybinta gadaal u dhigis ma laha. ilmaha yar cidda maamulayso, korinayso, dhaqaalaynayso, daryeelayso, ilaalinayso ayaa xuquuqdoodii loogu dhiibahayaa. laakiin wixii ay ka heleen ama aabbo ama hooyo oo qayb ay u yeesheen waa maaragtay qofka ammaanadaas gudanaya loogu dhiibaya ama maamulkooda haya ama ka gacan saaridooda. nacam, shareecada markay qaan gaaraan, wax kala gartaan oo weli la imtixaano kadib ayaa gacanta laga saaray. oo waa weynaadeen gacanta ka saar yaa la oran maayo. hadday xoolo ku dheel yihiin ama xoolaha aysan ilaalinayna gacan laga saari maayo. waa lagu dhaqaalaynaya, waa laga quudinaya, waa laga arad bixinaya. wax gacan laga saarahaya ma leh. way qaangaareen keliya maaha, shuruudii axkaam baa jirto. idan dadka dhaxalka iska leh ama siday isu dhexlahayaan, ilaahay subxaanahu watacaala kitaabka ayuu noogu bayaaniyey. horta waxa wax lagu dhexlahayo waa waxa weeye nasab, waa nikaax iyo maaragtay iyo addaan la xoreeyey. saddexdaas qaybood baa horta u qaybsamahayaan. ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu watacaala wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdi fi kitaab illah. raximka waa nasabka, yaa wada dhalashada, dadka wada dhashay ayaa mudan inay isdhexlaan. kitaabka ilaahayna ku taal. marka waxa weeye ilaahay wuxuu ka bilaabay wiil iyo waalid siday isu dhexlahayaan. dadka isdhexlahaya waa la tilmaamay, waa guruubo, waa qaybo, waxa ay leeyihiin, hantidaa waxay ka helahayaan ayaa maaragtay si gaara loo tilmaamay. marka rabbi subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu leey yuusiikum fii awlaadikum lidakari mithla xaddi alunthayayni. markaan waxaa la dhexlaya waa waalid. wuxuu ilaahay idiin dardaarmaya, waa dardaaran. yuusiikum fii awlaadikum, ilmihiina dhexda, lidakari mithla xaddi alunthayayni. wiilkii wuxuu leeyahay 2 gabdhood intay leedahay. marka yaa wax dhexlahayo, wax la dhalay baa wax dhexlayo, wax dhalay ayay dhexlahayaan. rabbi wuxuuna leeyahay lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walinnisaa'i nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun mima qalla aw kahur. ragow waxaad leedihiin qayb baad leedihiin waxay ka tageen labada waalid iyo qaraabo. haweeney dumaray waxaad leedihiin qayb baad leedihiin waxay ka tageen labada waalid iyo qaraabo. mima qalla aw kahur, ha yaraado ha badnaado. yaa ma garati. nasiiban mafruuda waa qayb yaa aan laga tegi karin. fardi markii la yidhaahdo waa waajib aan laga tegi karin wey. fardi markay timaado waa waajib aan laga tegi karin oo min allahi, ilaahay xaggiisa ahaaday. marka dad baa waxay dhahayaan naagtii laga dhintay naxdinay leedahay. war naxdin maxaa la yidhaahdaa? oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga naxdin may ninkeeday ka naxday. naxdin may wax ku leedahay? imise weeye naxdinta, yaa qadarkiisu waa imisa? ma laga jawaabi karo, waana loo badan yahay. wax naxdin la yidhaahda ma jirto. rabbi wiil iyo waalid say isu dhexli lahaayeen waa caddeeyey.
idan waxa wax lagu dhaxlo waxa weye waa nasab, waa dhalasho, waa dhalis, waa asal iyo farac say isu dhaxli lahaayeen. maxaa xiga? nikaax. nikaax sharci ah, ma aha wax qarsoodi, la og yahay, markhaati leh, ma garate. wixii nikaaxa dhex maro, nikaax baa wax lagu dhaxaltamaya. qofka maanta hadduu gabar guursado oo maanta isaga dhinto ama iyada dhimato iyagoonan aqal gelin, nikaaxaasayti ayay ku dhaxaltamayaan. gabadhii yaa iyadaa dhimatay, ninkeedii ayaa xoolaheeda kala baroo bar yeelanaya. isagana kakadaalika hadday wax dhalin, xoolihiisa waxay leedahay 4 meelood oo meel. hadduu wax dhalay, wiil iyo gabar waxay ahaataba, iyada ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho, 8 meelood oo meel ay leedahay. taa iyada lafteeda waxoogaa waynu caddaynaynaa sida maaragtay ay loo isu dhaxlahayo. idan waxaa jiro qolo nus qaadanayso, xoolaha nus ay yeelanayaan. waxaa ka mid a ninkii haddii xaaskiisii aysan waxba dhalin, cid kale u dhalin, isaga u dhalin, yaa xoolahaas nus isagaa iska leh. nuska soo haro yaa casabaa iska leh, casabaa iska leh. waxaa jira rubuc. asxaaba nus waa ay maaragtay badin ilaa iyo 5 bay gaarahayaan. waa zawjkii, waa gabadhi gabadhi uu dhalay, wa bintul walad, ma garate. gabadha wiilay dhashay. idan guruubbaa jiro, faahfaahinteeda kitaabadaad ka heli doontaan. maraba inaan waktiga maaragtay ku qaado, laakiin muhiimadda inay jiraan nus dad qaadanahaya, rubuc dad qaadanaya, thumun. talow waxaa laga yaabaa rubuc iyo thumun iyo maxay kala yihiin? nus waa la garto, kala baroo bar weye xoolihi. rubucu waxa weye 4 markii loo qaybiyo qayb weye. thumunna waxa weye 8 meelood oo meel baa loo qaybinayaa. 8 meelood oo meel. waxaa taasoo kale yeelan karta haweeneydii la qabay, xaaskii baa yeelanaysa ama 4 meelood oo meel ama 8 meelood oo meel. xaaska 1 ilaa iyo 4 yaa intaasay wadaagayaan, ama rubucay wadaagahayaan ama thumunkay wadaagahayaan. 4 hadday yihiin, hadday 3 yihiin, hadday 2 yihiin, hadday mid tahay, intaasaa ilaahay siiyey. waa qayb ilaahay siiyey wey. wa thuluthaan, 3 meelood 2 meel. 3 meelood 2 meel ayaa iyagana guruub qaadanaya jiro. wathuluth, 3 meelood oo meel. tii hore thuluthaan 3 meelood 2 meele bay ahayd. tanna 3 meelood meel weye. iyo wasudus, 6 meel. xoolaha dhan 6 baa loo qaybinahayaa, meel baa la helahayaa. marka kuwa waa dadyowga, waa guruubyada weye. guruub baa nus qaadanayo, guruub baa rubac qaadanayo, guruub baa maaragtay thuman qaadanayo, guruub baa maaragtay thuluthaan qaadanaya, guruub baa thuluth qaadanaya, guruub baa sudus qaadanaya. waa wixii la qaadan lahaa meeshaas, iyadoo shuruudo ay jiraan. shuruud baa jirayso, shardi baa jirayo. qofka nus markuu qaadanayo, masala ninkii oo kale, shardiga waxa weeye inay haweeneydii ka dhimatay inaysan caruur lahayn, isaga ama keyrkii. shardiga taa weye.
rubuc buu qaadanayaa masalan. haweeneydii caruur bay leedahay markaa iyada 4 meeloodoo meel buu qaadanaya, 3 waa ka tegahaya. marka shuruuddaas kitaabadaad ugu tegi doontaan rabbi idmo oo cilmi lfaraa'idka. idan ilaahay subxaana wa tacaala markuu dardaarankaas dardaarmay, rag waxay leeyihiin, dumar waxay leeyihiin, ma garata waajib inay tahay mima qalla aw kahur, ama ha yaraado ama ha badnaado. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. kalaalo waxa la yidhaahdo ilaahay noo tilmaamay, qof aan asal iyo farac waxba ka tegin, isagana yaa dhaxlahayo wey. asal waxaad idhahdaa wixii ku dhalay, wixii sii dhalay, waa kor u soco, waa hooyo, waa aabbo, waa ayeeyo, waa awow, ilaa kor waxay aad ka soo faracaagi faracaagiaan dhihine asalkaagii wey, meeshaad ka timidaa la yidhahdaa. faracana waxaad dhashay, waxay sii dhaleen, yaa wuxuu sii dhalay, yaa iyadana saas wey, waa kor u bax iyo hoos u deg. idan suurat nisaa buu ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu faahfaahinahayaa arrinkaa isaga ah. marka uga aanan talagelin inaan mid aan u dul istaago ama aan u sharxo. laga yaabe iyagoo youtube oo sharaxaadaas culamo bixinaysa inaad ka heli kartaan, laakiin waxa ugu muhiimsan, maadaama maalmahan geeridii badatay, inaanan dib loo dhigin markii la aaso marxuumkii geeriyooday ama marxuumaddii geeriyootay. 3 maalmood tacsiyada ka soo wareegto, maalin afraadii wixii ay ka tageen ha yaraada ha badnaadaano, in la qaybiyo oo culammada cilmulfaraa'id ilaahay ku manadaystay yaqaana lala xiriiro. ma aha nin walbo oo maaragtay wadaad ah inuu arrinkaas xalkeeda geli karo. waa cilmi oo weli xisaabaad maaragtay rabto sidii loo qaybin lahaa. ilaahay dad uu si gaar ahaan ugu manadaystay baa jiro, dadka kama wada sinna. in lala xiriiro, in la yidhaahdo yaa wadaadkii baa dhintay, waxaanu ka tegey, ha yaraado ha badnaado, la qaybiyo. gabadhii islaantii baa dhimatay, intaanu caruur iyo xoogaaganay ka tagtay, la qaybiyo. yaysan dhaafin muddo aanan 3 cisho wixii ka dambeeysan dhaafin. limaada? cid yaa qofkii ka dambeyn doonto lama oga. masaa'il badanaa meeshaasiti cilmi xoogan weeye. waxaa dhici kara 2 isdhashay inay daqiiqado kala hormaraan, yaa aabbo iyo wiil oo kale, yaa inuu aabbihii geeriyooday ama wiilkii hor geeriyooday. labadooda saa hataa dhaxalka yaa maaragtay dhici kara. qofkii hor dhintay, nafta baxday, kii kadib dhintay ayaa dhexlahayo. marka walaalkay dhegeysanaya, walaashii dhegeysanaya, ma ogid adiga marka cidda maanta qofkaa dhintay ee hantidan ka tegay, yaa cidda ka daba tegi doonto oo geeriyoon doonta adigu ma ogid waktigii. haddaad maanta tiraahdo ilmo yaryar baa joogo, ma garatay, waxoodii ma fahmaysa ilaa ay ka weynaadaan. nacam, ilaa ay ka weynaadaan waa lahaynaya, laakiin waa in la ogaadaa wiilkii muxuu helay, gabadhii maxay heshay. yaa kadib meel ammaan loo kobciyo, loogu shaqeeyo, loo xanaaneeyo, loo xafido ayaa meeshaas yaa taalla. laakiin in gacanta ilmo yar gacanta hadaad xoolo ka saartay, yaa qashinka ugu horeeya ku shubahayaa sooma. marka walaalayaal, dadka maamulka
hantida ay laga geeriyooday gacanta ku hayow, idinka laftiinna wakti aad dhimanaysin ma ogidin, ammaanaadna gacanta ku haysaan. ammaanada intay goorgoor tahay wareejiya, intay goorgoor tahay yaa wareejiya, sidii loo kala leeyahay. idinka maaha qofka qaybinaya, culamaa qaybinaysa u sheega, hanti intaan la egaan gacanta ku haynaa, guryo dhulal qiimigooda sidaa ay yihiin maanta intaas marahaya, maalintaa waxay marayaan ha lagu qiimeeyo, ma garatay. idan ha la qoro, qoraal ha laga sameeyo. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, qoraalka ma lumahayo, waa mustanad. markaasayti in maanta meel la dhigo oo mustanadkaasayti ilmihii hadday weynaadaan, war xaqaanaad aabbihiina ama hooyadiina ka dhaxasheen waktigaa iyada ah. hadday guryo ahaayeen qiimahaasay marayeen, hadday wax bangi ku jireen intaasay ahaayeen. wixiina maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad xaqa u leedihiin waa kaa iyada ah. laakiin in la iska aamuso, wixii la doona laga sameeyo, la iska maamusho, dhibkeeday leedahay. ilaahayna waa ka digay arinkaas. ninkii ilaahay ku tala yeela, yaa isla suurat nisaa aayadda 12 iyo 13 iyo 14 buu ilaahay ku gabagabaynaya, u leeyahy tilka xuduud allah waman yutic illaha warasuulahu yadkhulhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar ilaa aakhir alaaya. ninkii taa waa xad ilaahay, xad ilaah baa gooyey. ninkii ilaahay adeeca, rasuulkiisa adeeca, jannooyin buu ilaahay gelinaya xaal uu yahay ku waarahayo. waman yacsi illaaha, ninkii ilaahay ka tala diida oo dhagaha farta gashta oo yiraahda war hadda ma aha waxaan qaybintood, war ha loo kaadiyo, war ha la sugo, war ha la yeelo. ninkii yiraahdo maanta ilaahay rasuulkiisa caasiya, yudkhilhu naara, ilaahay naar buu gelinhaya, uu ku waarahayo. waxaa amarkii ilaahay iyo dardaarankii ilaahay ayuu diiday. marka walaalayaal, maadaama ilaahay cudurkan hanaga badbaadiyo, intii u geeriyootayna allaha ugu naxariisto, intii u xanuunsanna allaha shaafiyo caafiyo. walaalayaal, inta geeriyootay xuquuqdooda ee ay maaragtay lagu leeyahay ee dadka nool ku leh, ilaah baa arinkaas guddoomiyey, ilaah baa arinkaas qaybiyey, ilaah baa arinkaas u istaagay rabbi subxaanahu watacaala. wax ra'yi lagama bixin karo, lagama ra'yeyn karo, lama bedeli karo, lama tacdiilin karo. yaa wixii la doono lagama yeeli karo ilaa siduu ilaahay subxaanahu watacaala yiri mooye. nacam, qofka dhintay iyo qofka nool, waxaa jiro dad aan dhaxalkaas oo maaragtay yeelan karin, ayagoo dadkii iska lahaa ah. waxa weeye, haddii qofka geeriyooday qof la dilay hadduu yahay, dilkiisa qofkii dhaxalkiisa wax ku lahaa dilkaas ka qeyb yahay, waxa weye dhaxalkaasayti waa ku waayahaya. hadduu qofka diinta ka baxo oo islaamnimadii ka baxo, isna dhaxalkaas wax ku yeelan mahayo. oo waayo nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiid ayuu ku leeyahay inuusan dhexli karin mu'min kaafir, inuusan dhexli karin. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasoo noo warinaya usaama ibnu zayd ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaal laa yarisu lmuslimu alkaafir walaa kaafir muslim. ma dhexlahayo qof muslina gaal dhexli maayo, walaa muslinaan dhexlaynin gaal, isma dhexlaan. marka arrinkaas iska ilaaliya. qofka isagana sidoo kale laa yarisu lqaatil buu yiri shay-an. nebiga qof wax dilay isna dhaxal arki maayo. taana suurat albaqara waxaa loogu magacaabay, rag ayaa waxay dileen ina adeerkood, oo xoolahii aabbihii ka dhexli lahaa. ina adeerkaas hadduu meesha ka baxo ayagaa dhexlahay,
idan marka laba xaaladood inay laba dhaqaale inay isku darsadaan diyo iyo dhaxal ayay maageen. waana zamankii nabi muuse calayhi salaatu wassalaam. sidaad wada ogsoon tihiin yaa intay in adeerkooda dileen ayay boodad maaragtay reer ay dhigeen habeennimo ayay subaxi ayagoo walwaleynaya ayay dhaheen in adeerkeenii baa la dilay. marka ayagoo markaas ugu dan lahaa dhaxalkii aabihiisa inay helaan, waa yeel buu ahaa, hadduu dhinto asaa maaragtay iyagaa dhexlahay, in adeertaa dhexlaysay, wax kaloo dhexlahay ma jiro. iyo qoladaana diye inay ka qaataan, ayagana qolo faqiiriin bay ahaayeen. nabi muuse loo tegaa layidhi, nabi muuse na kala saar. waa tii saca yiri la yiri ilaahay wuxuu idin leeyahay inaad gowracdaan sac. suuradda saasaa loogu magacaabay, qisadaas ku soo aroortay. marka qaatil nin wax dilay dhaxal ma laha, nin miladii ka baxay diinta ka baxayna dhaxal ma laha. marka walaalayaalow arrinkaas aad baa loo fududaystaa, yaan la fududaysan, yaan la sahalsan, ha la ururiyo, ha la majmuuciyo. ciddii maanta qofkii geeriyooday wax ku leh, wax ka dayn ka qabaan, ha caddeeyaano, ha sheegaano, ha yidhaahdaan deyntaasaan aan ka qabnaa ama deyntaasaynu ku leenahay. waatan haddii maaragtay qofka lama aaso ilaa deyntiisii ay xilkeeda ay qaadaan dadkii maaragtay ehelkiisa ahaa, ay yidhaahdaan wixii deyn ahaa annaga halaynala soo xiriiro. marka qofka noolna waxaa la rabaa qofkaa dhintay wixiisii yaa inay maaragtay sida ugu dhaqso badan keenaan ama u sheegaan, yidhahdaan annaga wax intaa in la eg ayaanu ka qabnaa, sidaa ula socda, sida ugu dhaqso badanna hadduu ilaahay fududeeyo waanu keenaynaa. marka maadaama beryahan ay geerida aada u badan tahay, arrinkaa dardaarankaa ilaahay baa nafteyda nafta walaalahay maqlaysa, intii maqlaysa rag iyo dumarba xusuusinaya dardaarankaas alle inaan la fududaysan. meelaha maanta lagu nool yahay sida UK, qofka maanta iskiisa u shaqaynayay, aan dowladda aan wax dhaqaale ka qaadanaynin, beryahan howl shaqo la-aan ku dhacda, dowladda waxay diyaar u tahay inay dhaqaalo siiso shardi la-aan. mahma kaana nin dalka sharci ku leh, shaqaysanahayay, biilanahayay caruurtiisa, ma garatay. maanta haddii reerkii ay yidhaahdaan qofkii waa dhintay oo caddayntii ay la tagaan, ama la tegis mahe maanta ay kula xiriiraan oo ay maanta wargeliyaan, waxay dowladda diyaar u tahay shardi la-aan inay dhaqaale loo shubo ayay maaragtay ay u tahay, dhaqaale in loo shubo ay u tahay. marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin, qofka maanta meeshan ku geeriyooday hadduuba u degaan iyuu ku leeyahay, xaaladahana hadda socotana maanta hataa godkiisa inay dowladda bixinayso, oo laga rabo bas ninkii markaa maamulka haya arrintaasayt in wargeliyo. haddii qofkan waa nin iskiisa u shaqaysanaya, waxna maanta lagama hayo ama akownkiisa ama wixiisa, wax maanta godkiisa lagu bixiyo ma laha. haddii maarata dowladda waa duugi ilaa maanta qof marti ah, dad haddee maaragtay meelo kale ka yimid oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin dalka aanan dhalashadiisana haysan, aanan sharcigiisa haysan, meel kale marti asoo marti ah halkan geeridii ku tilmaan ayaa ku qabatay. qofkaasoo kale in la caawino, qabrigii lagu caawino, lagu garab istaago, alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa lagama maarmaan. laakiin qofka hadduu dalka dhalashadiisa iyo sharcigiisa haysto, xaq buu ku leeyahay. dowladdana shuruud la-aan ayay maaragtay arrinkaas bandhigtay in ay dhaqaale u shubayso. hadduu qofka hataa gurigiisa ku xiray oo yidhi anigu waa shaqaysanahayay, maanta meelaan shaqo u aadamahayo, aqalkii baan ku xabisnahay, isna in loo soo shubi doono. marka ayuha alikhwa, arrintaas yaan la fududaysan, waa dardaaran alle
alla aynu raalligelinno, alla aynu maaragtay war maqalno, alla aynu adeecno, yaan la caasinin. naftan meel loo soo jooga ilaah baa og. aynu maaragtay khayrka iyo wanaagga aynu isfarno. naf iyo habo waa cadow, shaydaan waa cadow. iska ilaali nafta intay sheeko kale kuu sheekayso, hawadeedana iyo shaydaan ay kuu qurxiyaan, yaan dalowga cadaabka ilaahay lagaa ridin. وهذا ما أقول، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وحن أصيب فمن الله وحن قف مني ومن الشيطان. أسأل الله أن يغفرني وإياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هلا إسجد بيو دردارن كاسيتي خير بدنا إلهي إذن كرجيني يا